حامغلي كبدي حابستوي كبدي أمانكا حلبلاي حامغلي كبدي حريق مريبتوي الله بلس حلكد قريي inta badan horta waxa aan sameeyay waxay ahayd dadka maaragtay qaab guud aan u xilanayo oo dad kala tagay iyo dad maaragtay waxa la yiraahdaa dad xoog ogaal oo haajiro oo maaragtay aan si gaar ah xogta ugu xilanayo munaasabadani oo ahayd mid ardayda ka wax baratay jaamacadda Green Hope ee bartay kuliyadda afka Soomaaliga iyo suugaanta ay ku difaacanayeen buugta qalin bedelashada ayaa maanta lagu qabtay hoolka jaamacadda Green Hope ee magaalada Muqdisho madasha buug difaacashada ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha jaamacadda Green Hope maamulaha guud ee jaamacadda iyo barayaasha wax ka dhiga ugu horreyn ardaydii maanta difaacanaysa buugaagta ayaa soo jeediyay buugaagtii ay qoreen iyadoo halkaasi lagu weydiiyay su'aalo kala duwan oo la xiriira buugaagtii ay soo qoreen intaasi kadib ustaad Mustafa oo maamulaha guud ee jaamacadda Green Hope ayaa ka hadlay muhiimadda jaamacadda ay u leedahay 30 sano kadib inay hirgelisay kuliyadda afka Soomaaliga iyo suugaanta kuliyaddan waxay nooga dhigtay wax weyn sababtoo ah waa luqadii afka hooyo af Soomaaliga ahaa ummaddu ay ku faanaysay maadaama waagii 30 sano ka hor maxamed saad bare dawladdiisii xoog la saaray wax kalna ay lahaaday hor u socod si buurna lahaaday burburkii wuxuu keenay in luqadii u dhunto dhaqankii dhumo wax badan ay dabar go'aan sida awgeed jaamacadda Green Hope maamulkeed markuu fariistay wuxuu ku fikiray inuu soo nooleeyo afka Soomaaliga sigoo muddo badan arinta ku dibaaxay waxa uu suura gashay markaas inaan calashaa manhaj aan sameeyno ustaadka ka fadhiya Allah qarsiyo ustaad Sultan iyo barsoosanta wuxuu faarax iyo ustaad Maxamed faarax annagu mugaas ku nimada waxa noo soo baxday in afka Soomaaliga aan bilowno xoogna saarno manhajna aan u helno dhameystiran insha Allah waxaan bilowno markaas dadkii u baahan afka Soomaaliga markii la bilaabay dad badan ayaa wuxuu arkeen si dhalanteed ah ama calashaan iyo sitaan ay ka muuqatay laakiin markii dhax galeen waxay dareemeen faa'iido weyn iyo waxayna wali la kulmeen maadaama dadkii siyaad bare wax ku soo bartay in ahayn afka Soomaaliga wuxuu noqday luqad rasmi ah insha Allah Green Hope ahaana waxaan ballan qaadaynaa in si xoojin doona hadii la yiraahdo annagoo waliba aan ka dhigi doona luqadda goobaad ummadda Soomaaliya wax ku baraarujinayna ee jaamacadda Soomaaliya inay nafti arinta wax ka daydaan afkii soo nooleeyaan maadaama afkii dhumay dhaqankii dhumay ugu dambeyn qaar ka mid ah ardaydii maanta difaacanaya buugaagtooda oo la dhaxqadnay mikrofoonka muuqaalbaaya SBTV ayaa ka hadlay dareenkooda iyaga oo sheegay inay ku faraxsan yihiin 30 sano kadib inay nasiib u yeeshaan inay bartaan kuliyadda afka Soomaaliga iyo suugaanta waxaan aad iyo aad runtii ugu mahad celinayaa maamulka iyo macallimiinta jaamacadda rajada cagaaran oo runtii kaalin weyn ka qaatay maanta inay dhaxal cusub ama midho cusub ay u soo gooyaan ummadda Soomaaliyeed maadaama ay hirgeliyeen in maanta arday cusub ay ka soo baxday kuliyadda afka Soomaaliga suugaantiisa burburkii kadib taasi waxay runtii tahay shidaal cusub way iiga farxad badan tahay maanta inaan ka qalin jibin lahaa kuliyadaha kale waddanka baxa aad bay iga qiimo badan tahay sababtoo tahay waxaan bartay taariikhda afka waxaan bartay sooyaalkii afka waxaan bartay khayraadkii waddanka waxaan bartay afka oo xambaarsan dhaqan iyo sooyaal iyo taariikh iyo runtii kalgacal badan oo Soomaalinimo marka farxadeeda ma dareemi karo yani runtii ma qiyaasi karo cabirna oo ma hayo maanta waxaan dhihi karaa mar labaad ayaan dhashay runtii farxad bayna ii tahay inaan maaragtay sii wado ilaa iyo heer aad u sarreysa aan ka gaadhana waan rajaynayaa buuggayga waxaan diradda ku saaray muhiimadda afku uu leeyahay iyo mooganaanta dhalinyarada oo runtii ah laba arrin oo aad runtii isu saameynaya oo afka iyo muhiimaddiisa iyo sida uu jiritaanka ummad dhan u yahay iyo aqoonsi ummad dhan u yahay iyo sida faca soo kacaya ee dhalinyarada ahi runtii ay u moog yihiin baan diradda ku saaray wax badan runtii waa ku soo ogaaday oo baahiyo iyo gudaloolo jira ah waxaan rajaynayaa buuggani inuu runtii baahidaas ugu yaraan uu dabooli karo ama iftiimin karo amaba u noqon karo xal iyo jid cusub bulshada Soomaaliyeed waxay uga dhigan tahay runtii noolayn bay uga dhigan tahay waxay uga dhigan tahay wadaniyad bay uga dhigan tahay waxay uga dhigan tahay runtii in ummadani ay masiirkoodii wax weyn lagu soo kordhiyay waayo sida adduunku isla ogol yahay oo isku raacsan yahay afku waa aqoonsiga ummadda haddii ummaddu marka aqoonsigeedii uu lumo ama aqoonsigeedii waqti la gelin waayo ama la qaramayn waayo ama la ilaalin waayana waad garan kartaa runtii waxyaalaha ka soo baxaya marka waxaan dhihi karaa kuliyadani
waxay shidaal cusub u tahay oo dhig cusub u tahay qarannimada iyo ummadda Soomaaliyeed ay runtii u tahay waana wax farxad u ah anagana maadaama aan hay kuliyadda ugu horeysay oo 30 sano kadib ama burbur kadib qalin jabisay waxaana saaran mas'uuliyad iyo kaalin runtii ka miisaan culus ardayda kuliyadaha kale ka soo baxay ee waddanka qalin jabiyay runtii waxay iga dhigan tahay farxad aan la soo koobi karin dareenkayga maanta wax aan ku cabiro ma garan karo waayo waxaan ka qalin bedelanayaa kuliyaddii afka Soomaaliga iyo suugaantiisa oo ahayd kuliyadda kaliya ee waligayba aan ku hamin jiray in aan ka qaato shahaadada heerka koowaad heerka labaad ilaa iyo PhD-da heerka u dambeeya dafcaddii koowaad ee burburkii dalka 30 sano kadib dafcaddii koowaad ururkii koowaad intii Soomaaliba ay jirtay kuliyad af Soomaaliga iyo suugaantiisa oo kali ah waxa bixisa jaamacadda Jigjiga oo Ethiopia Soomaaliya marka la yiraahdo waa dafcaddii koowaad buugayga waxaan diiradda ku saaray barjiyada hab aan doonayay inaan ku xalliyo dhibaato bulshada saameysay ama aafaysay oo runtii burburka qoyska ee ugu faraha badan leh in aan ku saxo dhibaatooyinkaas oo dadku ay bartaan barjiyadooda iyo dabeecadahooda si ay u saxaan markaas hanaanka xulashada lamaanayaashooda bulshada Soomaaliyeed waxay uga dhigan tahay in afkaaga hooyo aad barataa waa mar kasta oo cilmiga uu afkii uu imanayo waa mar kasta oo la helayo qoraalo fara badan oo afkii Soomaaliga ku saabsan waxa mar kasta sii horumaraya oo sii kobcaya afkii waxa sii badanaya kaydintii afka waxa sii badanaysa qaamuusadii waxa sii badanaya bugaagtii faraha badnaa ee afka waxyaabaha kala duwan lagu keenay cilmiyadii kala duwanaa ee caalamka yaalay ayaa waxay imanayaan afka sida buugaygan maanta oo barjiyada ku saabsan oo aan hore afka Soomaaliga loogu qorin oo kale farshaxan dhaqameedka oo kale muhiimadda afka oo kale guud ahaan kuliyadda bugaagta kala duwan 70 buug la qoray waxay uga dhigan tahay bulshada Soomaaliyeed in library-geedii amaba maktabadii bulshada Soomaaliyeed inay soo galeen bugaag aad tayo u leh qiimo leh oo afkan aan hore loogu qorin runtii maanta waxay iga dhigan tahay maalin weyn waxayna ii tahay maalin aan muddo sugayay ilaa yaranteedina aan ku hamin jirin inaan mar uun kuliyadda Soomaaliga burburkii kadib aan dalkayga iyadoo bixinaysa digri ahaan inaan u qaato oo aan maantana ay ii suurto gashay inaan jaamacadda Rajada Cagaaran ee magaalada Muqdisho ay ii suurto geliso fursadaas anna aan ka faa'iideysto cilmi baaristeedii iyo mowduucii aan u qabay baahida weyn inaan qoro ama aan wax ka diyaariyo bulshadan la wadaago inaan qoro oo maanta soo bandhigo aad iyo aad ugu faraxsanahay ani waxaan qoray buugga farshaxan dhaqameedka hablihii hore iyo isbedelka maanta oo buuggaygu wuxuu ka hadlayay farshaxanka hablihii hore oo samaynta sida weelkii caanaha oo kaleeto cawskii oo kaleeto kebada oo kaleeto iyo hees hawladada ay markaa ku qaadayeen sida kebada markii la sabaynayo kale hees hawladada loo qaadayo runtii waxay uga dhigan tahay waa qiimo aad u weyn ama fursad aad u weyn u soo hooyataan dhihi karaa bulshada Soomaaliyeed waxaa jira dad aad u jecel afka inay bartaan dad waxaa jira iyagoo qoraa haddana aan aqoonayn habkii ay hab qoraalkii toolmoonaa ee loo mari lahaa buugta la qoro waxaa jira dad jecel inay wax ku soo kordhiyaan sida maktabadaha kale inay buug dhigaan dad waxaa jira inay ka faa'iideystaan jecel laakiin aan fursad u helin maanta se waxaan leeyahay fursad waa u hesheen jaamacadda Rajada Cagaaran ee magaalada Muqdisho ayaa inii keentay marka qof walba oo jecel ama daneeyo barashada afka Soomaaliga ha ku soo dhawaadaan leeyahay rajadiisuna ay tahay inuu buug qoro waxna soo saaro kamid ahay ardayda maanta ka qalin bedelinaysa jaamacadda Greenhope iyo kuliyadda af Soomaaliga kuliyaddan oo in muddo aan la arkin dad af Soomaali dhameynaya aad baan ugu faraxsanahay bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad bay muhiim ugu tahay arrinkaasi waxaan ku boorinayaa dhalinyarada inay afka bartaan kaliya ma aha afku in lagu hadlo run ahaantii hadda markii aan intaan baranayay jaamacaddan intaan dhiganayay af Soomaaliga ka dhiganayay waxaan la kulmayay dad fara badan oo aad ila yaaba run ahaantii markaan idhaahdo waxaan baranayaa af Soomaali haddii dadku ay baranayaan hadda Ingiriiska oo kale waxa weeye English literature baa la yiraahdaa meesha English literature-ka hadda waxaa ku jira Somali literature baa ku jira Samiir Cabdirasaaq Umar wararka Muqalbaya SBTV magaalada caasimadda Muqdisho